waxaa jira kolley dhaqdhaqaaqyo iyo horumar dalka laga samaynayo dhinaca siyaasadda arrimaha bariga oo meel wanaagsan maraya israacsanaantii dhuleed oo imaka meel wanaagsan soo maraysa isqabsigii bulshada Soomaaliland oo meel wanaagsan soo maraya diiwaangelintii iyo doorashooyinkii oo soo dhow marka maadaama uu siyaasadda galayo ku cusub horta waxaan soo jeedinayaa intaan diyaar garoobayo in muddada xukuumadda la yar kordhiyo anigu waan soo jeedinayaa maanta waxaan soo jeedinayaa markaan wax walba qiimeynay in ay habboon tahay in xukuumadda uu maanta hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo loo kordhiyo muddo waxaan maalmahan iska soo daba dhacay kolley eedo iyo dhaliilo loo soo jeedinayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada runtii arrimahaas qaar waa laga badbadiyay qaarna ibn aadan baa loo yaho ninku hadduu xil qabto daliil ma waayo laakiin waxaan uga mahad celinayaa wasiirka inaanu layli ahayn ee uu yahay nin degan oo kelmadda la yidhaahdaba aan miidiyaha isaguna soo fadhiisanin oon ka jawaabin maadaama anigu ma odhanayo xisbigaasaan oo saasaan ay weli maan la tashan dadkaygii waan la tashan doonaa laakiin waxaan leeyahay wasiirka runtii ha laga daayo xagxagashada wasiirku shaqo wanaagsan buu qaranka u hayaa wuu dadaalayaa halkanna waynu ku kulannay waxqabad buu inoo ballan qaaday kolley maadaama siyaasadda idiin galay inaan idinka shaqaystanay ukumaan talagelin reer Balligubadloowe waxqabadada la idiin ballan qaado siyaasadda waa lagu shaqeeyaa qaranka loogu shaqeeyaa deegaanka loogu shaqeeyaa waxaan noqon doonaa siyaasiga qore codkiina intuu ku hadlo ka daba taga baahiyihiina ee u hadla danihiina ee idinla deegaana ee idinla joogi doona ee marnaba idinka guureynin